mar haddaa qosolka aragtaan qofku yaa waa taqaanaan aan filaaya caawa maxaad isleedihiin talow ka taxaaji maxay wadaa maxaa ka cusub caawa waxaan wadaa barnaamij la yidhahdo top 10ka fanaaniinta xagga ragga si fiican u falanqayn doonaa insha allah laakiin marka hore waxaad ila dhegaysataan fanaan anigu aan codkiisa aad uga helay very talented ah suldaan seyraar ila dhegaysta xoogaa yar igula raaxaysta Karidi haweenkeygii oo idira inta gabadh ku nool kuma gabiga qablaha kacay iyo kinta doortaay anta doortaay hodiya abesbay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiyo ciyaartiyo gobolkula caawaysa gacantuyadiitaay garalemadooba hodiya abeesbay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiyo ciyaartiyo gobolkula caawaysa gacantuyadiitaay garalemadooba maganaad hawena garan mau ku hawshan weligeedu muu korin hasaawalama gelin sida gobiya cadkeed weligeed kamuu bixin galadeeba weeye waxa kuula kuu qorin ordaguma gaadhe awdulaanigawa ما شاء الله سلطان سيرار برادر ما شاء الله تاي إلهي عدكاك كودايو الحين بكم أركتوه سلامة يا إمبدن برادر هانتي سلطان إنه فنان سومالي هذه هنو شيء ده يوتيوب كاسن كده حلا يعني أقول أمريه لكن توب 10 كي يقعوا بوجهه توب 10 عير ومصدرين وكهلا يعدك سعادة وبهيستا ما شاء الله حتى بقى توب 10 كي أنا مركعاودي شيء جاية أن صوح شيء my opinion waaye dad badan waxaan jeclahay dad badan inay maaragtay fikirkayga saliimka ay u raaci doonaan sida qaabkan wuxuu soo xushay insha Allah top 10 kayga xagga ragga fanaaniinta waxaan ku bilaabaynaa top 10 markaan leeyahay marka anigu number 1 hebel galay number 2 hebel galay number 3 hebel galay waxaas anigu kuma soo qaadan top 10 ka waxaan ku soo qaatay laakiin tobanka fanaan ee ragga ah ee hadda xulka ah وانا وان soo xulay fanaaniin badan oo talent ah jiro waliba fanaaniin aan caawa mooshin ka wadnaa jira qaar top 10 ku jiro mooshin ka wada xataa jira laakiin horta top 10 ka aan idin sheego xulka inta xulka ah waa idin marinaya waa calashan waa idin turruxinaya hal mar cawaale aadan axmed rasta abdi casiis iskalaaji dalmaryare najiib alfa guuleed simba maxamed bikay suldaan seeraar anshax from Hargeysa wow anshax iyo nimcan hilaa tirada gacmihiina ka tiriya saasu tiriya okay cawaale aadan axmed rasta abdi casiis iskalaaji dalmaryare najiib alfa guuleed simba maxamed bikay suldaan seeraar anshax iyo nimcan hilaa toban u taqaaniin sugaan iska hawshay كو لبا صدح أفر شن لح تضرب سديد سجال كو لبا صدح أفر شن لح تضرب سديد سجال طبعا وصحنا يس هذا بقى أرد توب 10 توب 10 كحلقة وكاس وحان مركز رواينا كهضرو فنانين الموشينكا أنكوضو فنانين بتشت الموشينكا أنكوضو الموشين أنكوضو فنانين تسموشينكا أنكوضو وفنانين حلا أيها نفت الكودو وفنانين تالنتد وفنانين أدعد معان وفنانين أنيقل أن أنت بدن فيفريت كيغا أنيقا فنانين تبارك موشنك لغا وضو
waxaa kamid ah fanaaniin hadda top 10 ka soo galay axmed rasto kale mooshin aan ka wadaa caaw top 10 ka oo kusoo darnay isaga reason ajira loogu soo daray axmed laakiin fanaaniinta oo mooshinka laga wado ku jira fanaaniinta mooshinka laga wado waxaa kamid ah fanaaniinta aan caaw top 10 ka soo galin oo mooshinka laga wado maxamed alta kamid ah waxaa kamid ah cabdi holan waxaa kamid ah cabdirasaaq alteso haddaba moshinku waa maxay moshinku waxaa waaye wax soo saar xumo cabdi holan iyo axmed rasta iyo maxamed alto wax soo saarkooda aada u liitaan weliba mooshinka saaid waxaan mooshin uga wadnaa cabdi holan iyo axmed rasta because way travel gareeyaan showyay dhigaan adduunkay aadaan haddana wax ma soo saaraan heese ma soo saaraan heese ay tuur ku aadaanna ma sameeyaan vanskooda shacabkoodana uma shaqo galaan isumana luraan ayaga naftirkooduna wax soo saar maaragta fankooda hor u dhigaayo ma sameeyaan axmed rasto show markuu dhigaayo axmed rasto show markuu dhigaayo oo fanaan aada loo jecel yahay showgu waaba tegay axmed kaba soo qaadba showgii tegay axmed ridda dambaa laga soo geliyay fanaankiyaa soo galay backdoor ka soo galay ya yasminay adduunyadan intaad dul joogtayo noloshayda idinkeed ka sokow ilaahay adigan ku aaminay ku dakeeya oo araskaan ku dakeeya oo alaabtaydi yartay dooqaagu waa dahabey dadkuna waa inay dareemaane gallayriyahu lixaadsaday naf jacayl luraysaa lalushkugu samaysee waaba dhamaadan heesay mugdo axmed maryan liirida dambe laga saaro waay djga baashaal galay axmed rasta goorma u hoyday marka axmed rasto wuxuu u baahan yahay heeso cusub inuu sameeyo waa talented aniga waxaa waaye waa fanaankayga waaye aadaan u jecelahay walaalkayna waaye waana very talented inta heesoo hadda axmed rasto oon soo qaaday heesaan ahayn oo axmed uu show ka qaaday ama ma aragtay caawa u sidan ma jirto marka taas waa canaan waana ii sheegay waana advice wax soo saaraa loo baahan yahay axmedow axmed daan ka baxo cabdi holan waa la iska cad yahay waa la iska qurxoon yahay waa la nuurooya codaa la leeyahay taalantidaa leeyahay laakiin waa bala dharbaaxan yahay bano heesba lama soo saaraayo heesba maba la soo saaraayo waana la baxaano fanaaniinta xagga wax soo saarka ka dharbaaxan ku jira abtigay ma fahamteen marka cabdi holan waxaan leeyahay xagga wax soo saarka mooshinaan kaa wadna waa ina wax soo saartaa maxamed alta laacib weynaad waay wuxuu laacib ku yahay mataqaanin wuxuu laacib ku yahay alaabaha baarsoolka la baxayo maaragteen ya alaabaha aan safka ku jirno fanaaniinta reer North America markii maaragtay xafladaha maamul goboleedyada markii oo loo dabaaldegayo Puntland oo kale iyo galmudug oo kale galmudug waxa ay ku caan tahay alaabahaas ya alaabtii sheeg Puntland xusuusi alaabtii Puntland heesta Puntland loo qaaday waxaan jecelahay inuu ku jiro heesta Puntland loo qaaday oo ii sheeg xafladda Puntland oo fanaaniinta ay qaadayeen oo taariikhda ahayd ma sha Allah waa ii goysa laakiin dib ma lahan adiga heesaha baarsoolayaasha alaabaha baarsool markii la baxaayo bay fanaaniinta dhan uu ka soo dhex baxaaya laakiin xay kugu taale hal hees oo caana ma laha hal hees oo wada tuur uu ku aadi kara ma laha fanka Soomaaliduna waa inaa update tahay waa inaad waliba wax soconaya soo saarto way jiraan fanaaniin badan oo heesa badan iskale heesa badan soo saaro laakiin heesa u qaraxda aysan jirin marka intaad waxaan qarxay soo saari lahayd waxa la qaataaba adoo wax soo saarin laakiin waxaan kula talin lahaa maxamed alto my brother wax soo saar waxa la yiri sheeg meel ka muuqa ama ka maqnow waa inaad maaragta soo saartaa heeso cusub oo hid ah oo qatar ah axmed waa nin aamusan waa nin afgaaban waa nin labisan waa good looking laakiin waa talented waa ii sheeg codow leeyahay laakiin xay kugu taalahay wax soo saarka xaqiisu ka dharbaaxan yahay asagana ma fahamteen abtiga abdi cabdi qalteeso retire la iska dhigaa retire ani meeqaan fan ku jira meeqo retire la iska dhigaa waa la isgaagaabiha waa run absaaq fanka kulligan uu nooga horreeyay laakiin xoogaay waxaan jeclaan lahaa abtiyo rugcadaagii soo rogaal celin la dhaw aniga ciyaartiisan aad u jeclahay cabsaaq qalteeso because cabdirasaaq waa talented absaaq waa ciyaara waa heesa waa talent
cabdirasaaq laakiin retire isu arkaa retire ma aqaan abtigay fanaaniintii miya fanaaniintii shacabka fanaaniinta badatay baarkan galmu isleeyahay ma ogi because hadda dhibka jiro waa la wada heesay walaalayaalo waa la wada heesay waxaan mar dhow ka baqayaa dadkii la rabay inay heesaha daawadaan dadkii heesaha daawadaan iyo dadkii heesaaya inay bataan marka ayaa la daawaha ayadana in la kala shaandheeyo u baahan tahay wax la xulo insha allah waa idin salaamaya inta samaha jecel no hard feeling maadaama aan real woman ahay realityga un baan ka hadlayna iyo wixii jira waa idin salaamaya cisii sharafiigu noolaada fanaaniinta top 10 ka ah oo caawa soo baxayna tig wada saara waryaada subscribe okay subscribe waa ku qabaysiin khayr idin rajayaa shalala Stay tuned.